السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإن السلام والله كان تعلايو وحن بلاوينا ما شاء الله أيامها اسم مقل سومالي قد رفوجر سومالي هلتي إيد بان بلاوينا cuntadii ahayd waxaa ini barayaa cuntooyinkeena Soomaalida dabiiciga sida loo habeeyo website-kayga YouTube-kaygana kala soconaysaan Khadra Foojar Somali Health Eid ma sha Allah ayaamaha waa kala maqnayn hawliyan biisi isaga ahaa halkan waxaa iigu bisil maxaa la dhihi jiray digir iyo qamadi Soomaalida cuntadeedii saliida iyo sokorta ay ku darsan jireen halkan waxaa iigu jarjaran toon iyo basal halkaana waxaa igu jarjaran baamiyaha marka waxaa suubin kartaan waxaan ku dalacayaa baamiyaha iyo basasha iyo toonta cuntada baan ku dalacayaa waxa yar olive baamiya waa taqaanaan waa geedkeeni Soomaaliya nooga baxa wakaas isagoo jarjaran wakaas waa baamiye Englishna akram baa la dhahaa marka geedkan sidaas isagoo aad u jarjartay salar baad ku cuni kartaa inta liindhanaan ku dartid iyo basbaas salar ahaan waa u cuni kartaa aad buu u fiican yahay lafaha dhareertada dadka lafaha laga hayo waa weyn ma aragtay aad buu anfacaya iyo dadka yararba dadka waliba vitamin D-ga lowga ku yahay aad buu anfacaya ma garateen marka waxa waaye maalinba wax cusub maalinta salarka aan ku darana waa in tusaya insha Allah waa inaad ka faa'iideysataan waxyaalaha healthiga qofka inta isku cuna cambuulada waxaad ku cuni jirtay sokor iyo saliid anigu waxaan suubinayaa cambuulada habaysan baa in tusaya sida loo habeeyana waa in tusaya sokor iyo saliid waxa ka caafimaad badan marka ka ku darsatid oo baamiyo ku darsatid oo ku dalacatid cunto habaysan oo macaan bay noqonaysaa waxa kale oo ku darsanaysaa oo ku dalacaysaa basasha iyo toonti wixii qudrada haystida kalena waa ku dalacanaysaa marka cunto caafimaad qabta calool caafimaad qabta dhiig caafimaad qaba iskiin quruxda badan kan marka baamiyaha marka cunta dhareertada dhan waxa waaye maaragtay ii sheeg meelaha dhacaanku galo oo ka dhamaada dhacaanku aad bay maaragtay u caawisaa oo soo celisaa haddana olive yar baan ku dalacayaa waxaan tusayaa digsiga olive-dana ku dalacayaa meeshaad sokorta kaga darsan jirteen waa olive oil baan ku dalacayaa wataas waa olive oil baan ku dalacayaa marka Allah musta'an meesha sokorta kaga darsan jirteen hadda marka sashi iyo toonti iyo maxaa la jira Allah musta'an isku dalacayaa waxa waaye caafimaad wanaagsan waxa kaloo ku galaysaa musqusha sokorta iyo saliidu dawa maahan talabaad basasha iyo toonta aad uma bislaynaysid hadaartina caafimaadka yeeshid kulaylka bas ka dilaya maxaa la dhihi jiray isha kulaylka marka ka dishid waa maaragtay waxa ku darasaa baamiyihi ama akramka u taqaani waa ku darasaa haddaan ku darayaa fiirsada haddaan ku daray Allah musta'an waa isku khalaynaya caafimaad calool caafimaad qabta waa maskax caafimaad qabta ma fahanteen Soomaalidu waxa ku leeyihiin waxana isku the best food waa cuntada ugu fiican marka waxa u ogaataan aad inay u fiican tahay healthy tahay caloosha iyo dhiigga iyo iskiinka u fiican tahay luga danba ay canuunayay saakayto 10,000 mile baa orday waa quraacdayda intaan baa ku quraacanaya orodkayga markaan soo dhameystay ma fahanteen waxa la yiri fadhi badan iyo cunto badan ba cudur bay keenaan waxa kula dardaarmaya dadka walaalaha ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay healthigooda ka fakaraan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri caafimaadkaaga inaad ku ciyaartid maahan ama ha aad balwad ama ha aad cunto aad iska badisay oo aad maaragtay oo inteeda loogu talagalay si ka badan oo cuntay ama ha ahaato cunto healthy ah cunina waxyaalaha maaragtay Soomaalidu saliidaha iyo ku shiisho cuntid iyo cambuuladana saliid lagu darsanayo marka maanta ito cambuulada iyo saliidii waa ka bedelnay iyo sokortii alaabtan baa lagu dalacayaa waa Somali Health Khadra Foojar waa naftaada u roono qalbigaaga u naxariiso
gurigaagii odagaagana u naxariiso iyo caruurtaadaba intii kula cunaysan ma fahanteen in soomaalida ilmaheeda ma baraan waxyaalo badan oo ayna siin baa jira marka cuntadan marti kasta ku soori kartaa waa cunto habaysan waxa waaye insha allahna wadankeena wuxuu ka baxaa guryaheena dawladkoodu ka baxaa dadka Soomaaliya jooga nagana sii badan yihiin baamiya asagoo fresh organic helayaan basas asagoo fresh helayaan ma fahanti intaas iyo koob qaxwa iyo laba xabo timir marka isku cunti عشر كده جنكتها وراعبة كده جنكتها وحكام كمان مسقول بجلسة علول ويا الميسي قف يرى دحير بعد نقنصة قف عافيمات قبل مركتي الحوق بدن بعد نقنصة مفيدة مركا تكسيلياشة هذا طبعا حتى انتوين كدليفري سومالي دليفري فود كده كرنا ما فهمتي تكسيلياشة تراك درايفركا dadka ka shaqeeya meelaha la socona xafiisyada fadhiya inta aad inay afayso aad fiican waaye qof walbana wuxuu ku yahay wixiisa iyo caafimaadkiisa dad badan baa waxay cuntooyinka eeshiyaanka saliida laga badiyo jacayl laakiin waxa ogaatay waxa adiga u leedahay dhaqan oo adiga ku baxo dhulka ka baxo wax ka fiican mal qof walba dhulkiisa uga baxa wax ka fiican mal soo kaamirada xawleeyay waxaan raadsanaya waxa yara waxa ku darkan kartaa مرق دجاج أما قصير مال فوق عندنا كذا كلام هاوي إد سألتك مرق عافمات رواية لك العرون مايو قفكم مرق عافمات قبنا ما ركتي عربي سوايرتي وقفلتي وعافمات قبه وحير بسكو مني إن شاء الله مركي عند مايستر سكو منته waan ku daraya walaalayaal marka waxaan ii sheegaya dadka cuntooyinka shisheeye raadinaya inay wadan kale ka keenaan cuntada dhulkiina ka baxdo caafimaad qabta cuna baasta iyo bariis laga keenay Talyaani iyo Hindiya waxa inaga fiican waxa dhulkiina ka baxay inaa habaysataan hadda kan waa qamadigi iyo digirtii iyo baamiye iyo basal iyo toona isku mid cunto wallahi ka macaan ma jirto hada dhadhamis aad bay u macaan ma fahanti qoliya liiba yar baad maaragtay ii sheeg dusha ku darasa oo u jeedaan basasha xataa aad uma bislay waxa waaye caafimaadka halka kala socda waxaadna ogaataan qofku markuu caafimaadkiisa lagu aftajiray qof kalena wuxuu noqdaa alxaasi waxayna tusayaa marka qofku intuu cunayo cuntada afka dhameysina dadka dhaafista barbalka horeen isku shaqeeyay ma fahantiin waa kan wajada alaabtii diyaarsan isku diyaarsan marti lagu soori karo dhinaca cad yar oo hilib aad dubtay ama uu mataysa ku cuni kartaa chicken baa ku cuni kartaa fish baa ku cuni kartaa waa Soomaali healthy qadra foojar halka kala socda Allah inii barakeeyo share iyo like tan ku dhufta caafimaadkiina halka kala socda aad bay cuntada u macaan tahay gabadhii odageeda u karaysa wax badan buu soo xasuusan iyo wiilka hooyadii u kariya intaba waana mahadsantii waa in salaamaya dhamaantiin caafimaad booli kulantay mar dambe insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh